السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت شرفت لك وسود هذا يوتيوب بيج كنا عوض حسرف على قيد دونا كل مدي أسبوع عن بريمير ليج ليلي لما أنتوا وكلن كجودن بيه هذا حير كوركوسو إدلادي توتنهام جودن بيسي كل مدة سياسل في دونا أي نتيجين كوسو دمادن إياه ريال كبريمير ليجا كلا سرين تيستا وقت حاضر كان ياسل في دونا مركا أنت أنا أقول جرن لايك تشيرت سبسكرايب تبليس نقول دالا ونقعد سي وأبانا تاجردين مرة البا halkaas daa ugu gudubno oo ugu galno falanqeynta kulamada kulanka ugu horeeyay wuxuu ahay wuxuu dhaxmaray Crystal Palace iyo Liverpool kulankaas oo kooxda Liverpool ay guusha ku raacday 1-0 ciyaarta 9 daqiiqo markay maraysa Diego Jota ayaa goolkaas u dhaliyay kooxda Liverpool halka Gakpo uu ka caawiyay nimanka Liverpool aniga waa idin sheegay sanadka sidii ay u saadaaliyay ka duwan wada ka duwan ay ku socdaan meel hooseyna ka socdaan nimanka waxa waay dadka ma aaminsan waxa isdhahay Liverpool sanadkan horyaal iyo wax ma qaadi doonto laakiin nimankan underdogs waxa la iska ilaaliyo hore idin ku sheegay kulamadan oo kale waa kulamada go'aamiyo kooxaha inay horyaalka u tartamaan kulanka ay ka taalo kooxaha isbuuc ay ka taalo hadaa badisid daadmiinis waxa horyaalka inay qaado u baahanta marka kulankan waxay ciyaartoyda Liverpool badan ay daal oo ku wada muuqday oo kubad fiican ay soo bandhigeen saasay tahay dhibcood waa qaateen saddexdooda dhibcood oo halkaas gool ayaa uga filnaaday difaacna waa ka xirteen Gakpo iyo Mo Salah iyo McAllister iyo Diego Jota kulligood way dheelaayeen saasay tahay waxa waaye goolal badan way dhali waayeen laakiin hal iyo Everton ayaa ku filnaatay maadaama ay away ahaayeen Crystal Palace koox adag ay tahay oo isbuucii horeeta kooxda Man United ay ku dhagtay marka hal iyo Everton ay saddexdood dhibcood ku qaateen halaas ayaana ku filnaatay wali horyaalka ay isku hogaaminayaan kulankii labaad hada halkaas ugu gudubna Liverpool wuxuu ahay Arsenal iyo wuxuu u dhaxeeyay kooxda Southampton waa ogtiin waxa waaye waa koox iska liidata waaye kulankaasna waxa waaye wuxuu ku dhamaaday kulankaasna waxay guusha ku raacday kooxda Arsenal 3-1 oo waliba goosha waxa looga hormaray kooxda Arsenal oo looga naxsaday laakiin Arsenal waa taqaanaan team adag waa meel walba ka dhisan ciyaartoy dhisan haystaan taa baraf fiican haystaan hal iyo eberka goosha 55 daqiiqo markay maris Cambiorto eber lagu maray 55 daqiiqo markay maraysa goosha laga dhaliyay waxa la isdhahay Arsenal difaaca laga xiran doona dad badan kursi gambar u dhigteen Arsenal oo laga badi doona la isdhahay laakiin 55 daqiiqo markay maraysa goosha laga dhaliyay kooxda Arsenal markaas ay ka caday isla markii 3 daqiiqo kadib Havertz gool u dhaliyo Saka ka caawi hadana 68 daqiiqo markay maraysa hadana Martinelli dhaliy hadana Bukayo Saka 86 dhaliy halkaas guusha wuxuu ku raacday kooxda Arsenal marka Arsenal waxa waaye sanadkan Arsenal iyo Liverpool iyo gambar u dhigasho waxba tarimayso nimankaas niman mar walba raaynayo waa hadda halkaas uu gudubno kooxda Arsenal sidoo kale waxa dheelay kooxaha Brentford iyo Wolves Brentford waa idin sheegaan waxa mar walba koox adag waa kooxaha waaweyn ee ugu jeceshahay adduunka nimankii Wolves waxa lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 5 looga soo haray hada xir telefoon meeshaan aan waalo marka waxa waa kulan adag oo kulanka goolish 8 gool la iska dhaliyay kulanka ugu adkaayo ay isbuuca la dheelay marka 5-3 ay ku soo dhamaatay oo guusha ay ku raacday kooxda Brentford Wolves oo dash 3 gool dhalisay laakiin waxa uu tirwaysa waa laga goolal badnaay hada halkaas ugu gudubna sidoo kale waxa dheelay Leicester iyo Bournemouth Leicester oo Serbia ka imaatay iyo Bournemouth oo koox adag goosh waxay raacday kooxda Leicester Bournemouth anagu u saadaalin inay raadi doonto laakiin ciyaartoyni 6 daqiiqo markay mareysay gool dhashatay kooxda Leicester goolkaas ayaana ku filnaaday oo difaaciye ka xirteen wax kasta Bournemouth isku daysay xitaa gool laga diiday kooxda Bournemouth laakiin guusha halkaas Leicester ay ku raacday 3 dhibcood ku qaadatay kadib waxa ku sii xigay kulankii kale ee weynaay ee kooxaha Man City iyo Fulham kulan adag oo kulankaas walaah kooxda Fulham isla markiiba 26 daqiiqo markay mareysay waxa waaye waxay goolka raalaadana telefoon meeshaan aan dhawrino isla markii 20 daqiiqo markay mareysay 26 daqiiqo markay mareysay waxa waaye Fulham gool uga naxsatay nimanka City ahay waa isku dhaxyaaceen nimanka waa laakiin City waxa ku taqaanay waxa waaye Kovacic wuxuu ka dhaliyay alaab caadi ayadoo ciyaarta hal mar labaad Kovacic hadana Bruno loo taagay isla sidii hadana ninkaas caadi ma labadaba dhaxdu ka toogtay laba yaal ayadoo saas kadib ninkii Doku la soo galiyay Doku ka soo jeestay gool oo macnaha dhinaca ka soo galay taqaana Doku goolasha u dhaliyo saan ugu soo leexsada ugu soo shuuday gool ka dhaliy nimanka amniid jaban 8 daqiiqo markay mareysay gool kale hadana gool labaad soo bareejeen laakiin 3 iyo 2daas waxay guusha ku raacday kooxda Man City oo si dirqi ugu fakatay kooxda Fulham haddii Man City Fulham halkaas ugu gudubno sidoo kale waxa dheeray kooxaha West Ham iyo Ipswich oo Serbia ka imaatay 4 lagu dhuftay West Ham waxay kulan fudud u ahayd Anthony wuxuu u dhaliyay gool ku sidoo kale gool u dhaliyay Bowen gool u dhaliyay marka Bukayo sidoo kale gool u dhaliyay
marka waxa waaye guul waxay aad kulan fudud u aad kooxda West Ham saddex dhibcood fudud u aad saasi meesha ku qaadatay afar iyo halkaas ay guusha ku raacday kooxda West Ham Everton iyo waxa isku barbar dhacay sidoo kale kooxda Newcastle ku ciyaar laakiin sanadkan wixii ciyaartooy ay gadatay maba ka muuqataba niman ciyaartooy badan inay soo gateen loo maleynayo maba ahaw oo barbardhac ever oo gool iska dhalan ay kooxda Everton la galeen waliba Everton oo gool laga diiday halka penalty laga diiday kooxda Newcastle iyo ciyaaryahanka Gordon marka waxa waaye meeshaas wuxuu ku dhamaatay ever wax lisla dhaaf waa la kala qaatay dhibcaha sidoo kale kulankii cawada waxa dheelay Aston Villa iyo Man United sidoo kale ever kale oo kulan kale ever oo la isdhaaf kooxaas United waa ogtiin waxa waaye sanadkan waa ka taalay macalinkooda Ten Hag oo waliba Ten Hag wuxuu baantay in isbuucan la buri doono Aston Villa waa kacsaneed kulankii hore waxa ka badisay Bayern Munich ka soo badisay haweenka waxa la isdhaaf kulanka Aston Villa waa badi doonta maadaama gurigeeda lagu dheelay laakiin weerar badan uga ma jeedin oo kooxda Man United waxa ka weerar badneed laakiin waxba gool la iska ma dhalin dhibcaha meesha oo lagu kala qaatay kulankii kaleeto oo isla waqtigaas socdo wuxuu ahaa kulankii Chelsea iyo Nottingham Forest haweenka waa koox weyn oo aragto Liverpool dhibco ka soo qaadatay saddex dhibcood nadiif ka qaadatay Chelsea waxa la isdhaaf dhibco ka qaadanayo markii gool la hormartay isla markii kooxda Nottingham Forest oo markii Cambide laga soo laabtay gool dhashatay kooxda Nottingham Forest laakiin wax yar kadib Maduka ka bareejiyay oo Cole Palmer assist ka sameeyay kooxda Liverpool waxa way dadaal badan ay sameysay laakiin dadaalkooda wuxuu tiri waayay halkaas wuxuu ku dhamaatay hal iyo hal sidoo kale waxa dheelay kooxaha Brighton Hove Albion iyo kooxda Tottenham Hotspur kulan adag oo 5 gool la iska dheelay 3 iyo 2 guusho wuxuu ku raacay kooxda Brighton maba isdheelin baan Tottenham laga badinaa laakiin waa laga badi top 4 season kan kooxaha u tartamaya Chelsea Man United iyo Tottenham dhibcay wada dhumiyeen maanta oo saddexdooda maanta dheelayaan dhibcay wada dhumiyeen isla markiiba ciyaarta markii wax yar socotay 23 daqiiqo kooxda Tottenham gool heshay Johnson gool u dhaliyay laakiin goolkooda way difaaci waay macnaha waxa waaye goolashooda difaaci waliba laba gool ku hormareen goolka labaad xitaa Madison u dhaliyay Cambia laga soo laabtay markii laga soo laabtay kooxda Brighton hal gool heshay haddana konton daqiiqo markii maraysa waaba soo bareejayeen laba konton daqiiqo ciyaarta taagneed Brighton maxaa ku taqaanaa kooxda haweenka jecel waa Brighton iyo Brentford iyo daarta waliba waa la iska ilaaliyaa iyo Fulham haddana 6 daqiiqo markii maraysa Dan Welbeck goolka saddexaad dhash waxa meeshas 3 iyo 2 guush wuxuu ku raacday kooxda Brighton Tottenham waxa dhibcay dhumisay top 4 u tartamaysay sidoo kale Chelsea top 4 u tartamay sidoo kale Newcastle top 4 u tartamay dhibcay dhumisay Aston Villa top 4 u tartamay dhibcay fursay dhumisay United top 4 u tartamay dhibcay dhumisay 5 koox oo top 4 u tartamayana isbuucan waxay dhumiyeen dhibco waliba kulankaan dhumiyeen marka haddii aan fiirino kala sareynta Premier League Liverpool wuxuu ku haysaa 18 dhibcood City wuxuu ku haysaa kaalinta 27 ayadii Arsenal isku jiraan min 17 haystaan Chelsea kaalinta afraad ku jirta oo 14 dhibcood ayadii Aston Villa ayaa isla leh Brighton iyo Newcastle iyo Fulham Brighton iyo Newcastle min 12 dhibcood Fulham 12 dhibcood Tottenham iyo Nottingham Forest iyo Brentford min 10 dhibcood United kaalinta 14aad ku jirta maana la tagtay wax arkay mid wuxuu yiri oo kooxaha Premier League markay kor u socdaan United oo soo socotaa been ma xaqiiqo United kulanka hore waxay taagneed 12aad taagneed hadda 14aad taaganta isbuuca dambe inay ka sii dib martaa laga yaabaa marka khiyaaray Premier League iyo macnaha saas ayaa meesha ayaa kala mara macnaha kala sareyntiisa waxa waaye isbuuca dambe haduu Ilaahay yiraahdo waxa la aadaa international friendly la aadaa kadib ayaa arki doonaa meesha sida u sii socota iyo kooxaha si u dheeli doonaan markii friendly kaas laga soo laabto kooxaha badan waxa ciyaar adag ay leeyihiin waxay ku soo dhamaadaan wal arki doonaa sidoo kale adika maxay dilataa maxay filaysan isbuucan iyo macnaha kala sareynta kooxaha iyo guulasha sidii ay u saadaaliseen may noqotay annaga badanaa kooxaha u saadaalin isbuucan way noqon weysay oo maalinimada sabdiga kooxii dheelaab xoogaa si fiican u saadaalinay laakiin maalinimada hadda United guula u saadaalinay waa laga raay Chelsea guula u saadaalinay waa laga bareeja gash Tottenham guula u saadaalinay waa laga raay yaa kale Newcastle guula u saadaalinay sidoo kale waa laga raay marka kooxaasna waa laga raay dhibcay dhumiyeen tartan furan waa wali top 4ka marka halkaas ay ku soo gabagabeynaa falanqaynteena kooxaha Premier League isbuucan fadlan share like iyo subscribe ta naga hilmaamin waa noo muhiim inta kulanka ku kulmayno waxa idin ka tagaynaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh